weligaa ma ku fikirtay in aad lacag dhan 1225 bishii aad samayn kartid keliya adigoo wax qoraya? haa, si fiican aa ii maqashay, keliya adigoo wax qoraya. sidoo kale qaybta kale ee la yaabka ah ayaa waxay tahay shaqadaani kaagama baahna wax xirfad ah ama shahaado jaamacadeed. sidoo kale shaqadaani kaagama baahna wax maalgelin ah, totally waa free. maalgelin kaagama baahna. waxaad samayn kartaa intaad doontid ee lacag, waxaad qori kartaa intaad doontid ee erayo ah, sababtoo ah lacagta waxaa lagu xisaabiyaa inta eri ah aa qortay. fursadani boqolkiiba boqol waa free. sidoo kale dunida meel walba aad joogtid ayaa shaqadani qaban kartaa. marka shaqadani waxay fursad u tahay dadka waqtiga haystaa ee raba in waqtigoodii ay lacag side hustle la dhahayo ay ku sameeyaan. adoo shaqadaada caadiga sii wato ayaa shaqadani ka shaqayn kartaa. keliya waxaad u baahan tahay in aad fursad haysato. kow, sidoo kale in aad mobile ama computer haysatid. labo, in aad haysatid internet. sidoo kale in aad wax qori kartid keliya. waxaan ognahay in dhammaanteena aan naqaano sida wax loo qoro, maadaama maalin walbo aan mobilka ama computerka wax ku qorno. muuqaalkani ayaan kugu sharxi doonaa wax walba oo ku saabsan arrintaani, hadday ahaan lahayd sida loo dalbado, foomyada sida loo buuxiyo, iyo sidoo kale weyga ama qaybta ugu wanaagsan ee laga doorto seebka adig kugu habboon aad dooran lahayd. laakiin intaana muuqaalkan gudagelin, fadlan muuqaalkan like saar, sidoo kale channelka subscribe saar si muuqaalada soo socda ee noocan camal ah aysan kuu dhaafin. waxaa soo socda muuqaalo kuwan la mid ah oo ka xiiso badan. marka sidaysan kuu dhaafin muuqaaladaasi, fadlan channelka subscribe saar, gabrielkana furo. marka intaanan waqtiga sii lumin, fadlan aan muuqaalka gudagalno, markaan istaabna aan aragno siday wax walba ay u dhacayaan. marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay in aad soo kicisid chrome-ka aad isticmaashid. aan waxaan isticmaalaa chrome-kan ugu magacaabo google chrome. marka waxaad ku qortaa qayb searching-ka, waxaad ku qortaa desire talent, kadibna enter leh, kadibna waxaa kuu soo baxaya waa u jeedaa, waxaa leedahay qaybkan hoose click-si, kadibna waxaad soo gashay website-kii shaqada ka dhacaysa. marka website-kii waa ujeedaa sidaan ayuu u yaalaa. marka anaga waxaana nama quseeyaan, waxaan ku dhufanaynaa qaybtani ay ku qoran tahay current openings. ku dhufo, kadibna waxaan soo galnay qaybtani. marka waxaad ku arkaysaa shaqooyinka furan. shaqooyinka furan qaybta ugu horeysa waxaa ku qoran online typing. waa qaybtii maxaa loo yaqaan haddii aan ka sheekeynayni typingka ku saabsan inaad wax qortid keliya. wuxuu ku leeyahay estimated per day earnings. maalintii qiyaas ahaan waxaad shaqaysan kartaa lacag gaaraysa $60 ilaa iyo $120 maalintii. marka waa estimate qiyaas ahaan inta aad samayn kartid. waxaa laga yaabaa ka badan inaad samayn kartid, sidoo kale waxaa laga yaabaa ka yar inaad samayn kartid. marka waxay ku xiran tahay shaqada sida aad ugu baxsatid. okay, intan waxaan u jeedaa medical transcription jobs, wax shaqooyinka ku saabsan maxalalaasi caafimaadka. sidoo kale inta waxaa ku qoran online tutoring oo ku saabsan ayaa shaqooyinka maxaa loo yaqaanaa inaad dad wax bartid online, dad wax ku bartid. kan medicalka hadaa fiirsid waxay u dhacaysaa 90 ilaa iyo 180. marka anaga labadan nama quseeyaan. kor aan u laabano, qaybta ay ku qoran tahay online typing ayaan ku dhufanaynaa. click-si online typing-ka click-si, kadib waxaa soo gelaysaa marka meeshii warbixintii aad rabtaa meeshaan ku qoran. marka okay, marka inta fiirsid wuxuu ku leeyahay marka haddii shaqooyin aad rabtid marka in aad qabsatid adoo gurigaaga joogo, marka tan waxay kugu tahay waxa loo yaqaano shaqooyinka aad rabtid in aad dalbadid. marka waxay offer gareeyaan, marka waxay ku leeyihiin fiirwi offer ama waxaan anaga offer gareeynaa. tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay you can earn up to
13,500 ilaa 27,000 sanadkiiba ayaad dalban kartaa ama aad shaqaysan kartaa website-ka. maxaa waaye shaqooyinka aad qabanaysid wax kale maan waa typingka typing keliya. marka lacagta aad shaqaysan karta wuxuu ku leeyahay waa intaasi. marka guaranteed work, marka shaqadii lagu damaanad qaaday in aad filato ayaa waxay tahay ugu yaraan sanad bishii aad samayn kartid lacag gaaraysa 1,125 bishii ugu 1,125 bishii sida titleka aad kusoo aragtayba bishii intaana shaqaysan kartaa. marka shaqooyinkan waxay noqonayaan markaasi worldwide, adduunka dhan. marka worldwide waa meel walba dunida aad joogtid waa isticmaali kartaa, waa dalban kartaa, Soomaaliya ama meel kale. marka haddaad ka walwashay in aad Soomaaliya aysan ka jirin waatana waxay ku leeyihiin worldwide weeyaan. shaqooyinkan waxaad ka dhigan kartaa part time ama full time ayaad ka dhigan kartaa, waana from home jobs way, adoo gurigaaga joogo ayaa shaqadan qabsan kartaa. marka pay rate ay wax ku bixinayaan, rate ay wax ku bixinayaan qaybtan ay ku sheegaan waa kana markaasi. okay, qaybtan hoose ay ku sheegaan. qaybtan kor waxay ku leeyihiin we are ready to pay the best in the market for typing work, but we are really expect in return to you a good accuracy work. marka waxay ku leeyihiin anaga waxaan diyaar u nahay dadka ugu xirfad fiican inaan lacag fiican siin anaga, laakiin waxay leeyihiin shaqada anaga aan ku dirnay waxaan rabnaa sida ay tahay ama sida lagugu sheegay in aad u qowtid. okay, dadka beginnerka adaa fiirsid, dadka beginnerka waxay samayn karaan lacag gaaraysa 0.010 oo ah markaas halkii eri per word. waa ujeedan qaybtaan inta waxaa ku qoran per word price, eri walbo inta aad ka shaqayn kartid. marka waxay ku leeyihiin inta waxaa waaye estimated earnings per article, qormo walba aad qorto inta lacag aad ka samayn kartid intay ku sheegeen. waxay ku leeyihiin $3 ayaad waxaad ku helaysaa qormo aad qortay oo erayadeeda gaarayo 300 erayo gaarayo. waa qofka beginnerka ah $3 ayaad waxaad ka samaynaysaa adoo kaliya qoray 300 oo eray ah. waxa aad u yar runtii. dadka intermediate-ka ah ayana waxay sameynayaan 0.012 ay sameyn karaan oo u dhiganta markaas 300 eray ay waxay ka sameyn karaan lacag gaaraysa 3.60 senti ay ka sameyn karaan markaasi. dad professionalka ah waxay ka sameyn karaan ayagana 0.015 ay ka sameyn karaan oo u dhiganta 300 eray waxay ka sameyn karaan lacag gaaraysa $4.50. okay, dadka expert ah marka waxay ka sameyn karaan erigi halkii eray ay qoraan 0.020 ay ka sameyn karaan, taasoo u dhiganta $6 ay waxay ka sameyn karaan 600 eray ay qoreen. marka waxay ku xirantahay saa u jeedid lacagta lagu siinayo waa xirfadaada. okay, beginner hadaad tahay xirfadaada. tusaale ahaan waa soo gashay waxaad qortay 300 eray, sidoo kale waxaad heshay $3 adoo kaliya beginner ah, bilow ah. marka waa muhiim 300 tusaale ahaan $3 oo intaas qormo aad samayso lacag wax fiican ay noqon maalintii kaliya hadii $40 aad ka samayso ama $50 wax fiican ay ku turaysaa markaas. okay, meel kaaga soo bixi doontaa. okay, page walba tusaale ahaan page ay ku leeyihiin $3 waxaa laga sameyn karaa maxaa la xirfada laga hadlaa. qofka beginnerka ah hadduu shaqeeyo maalintii maxaa loo yaqaana 6 saacadood hadduu shaqeeyo maalintii wuxuu sameyn karaa markaasi $45 ayuu sameyn karaa. qofka markaasi intermediate-ka asna maalintii wuxuu sameyn karaa $54. qofka professionalka ahna wuxuu sameyn karaa lacag gaaraysa maalintii $67. halka maxaa loo yaqaanaa qofka expertiga uu sameyn karo $90. marka maalintii $90 hadaad samayso adoo expert ah waxaa waaye meel fiican ay kuu soo baxda markaasi. inta waxay ku leeyihiin beginner hadaad beginner tahay waxaad samaysan kartaa ama waxaad kasban kartaa lacag gaaraysa $45 maalintiiba. $45 maalintiiba marka waxay ku leeyihiin bishii waxay kuu keeni kartaa 25 maalin la shaqaysay tusaale
25 maalin aad shaqaysa haddaa 45 aad ku dhufatid marka bishii waxaa samayn kartaa lacag gaaraysa $125 ayaa samayn kartaa marka bishii adoo 6 saac maalinta aad shaqaynaysid intaad lacag aad samaysid waxay kuu tahay marka fursaday kuu tahay marka okay kaliya marka waxaa lagaaga baahan yahay waxay tahay requirement lagaaga baahan yahay waxay tahay xoogaa English inaad taqaanid kadibna maxaa laas internet fiicanna aad haysatid okay English internet fiicanna aad haysatid soo kalena halkii daqiiqo qori kartid tusaale ahaan 30 ilaa 50 erayo oo wax wanaagsan waana qori kartaa really halkii daqiiqo intaas ayaad qori kartaa marka sidoo kale waxay ku leeyihiin waa in aad ahaataa ugu yaraan da'daada 16 sano da'daada waa inaysan ka hooseyn okay hoos haddaan u baxno marka joining feega maxaa waaye lacagta lagaa rabo barnaamijkan in markaa kusoo biirista maxay noqonaysaa totally lacagta lagaa rabo waa free shilin lagaama rabo inaad shaqadan bilowdo waxaa jiro meelaha qaar in lagu dhaho si shaqadan aad u bilowdo lacag intaas dhiib marka totally waa free okay haddaa rabtid waa okay marka inta waxay ku leeyihiin payment terms and serviceska waxaa ma aqrisan kartaa laakiin uma baahnid kadib waxaa leedahay apply intaa ku dhufanaysaa laakiin apply intaadan dhihin waxaad u baahan tahay in qaab qoraalkaaga iyo awooddaada qormo intay la eg tahay marka inaad tijaabisid marka si u tijaabisid waxaad isticmaalaysaa maxaa loo yaqaana si websitekaasaan tegaynaa markaa ku dhufatid websiteka waxaa arki doontaa ama aad tijaabin doontaa awooddaada xagga qormada okay marka waxaan tegaynaa website lagu magacaabo raytype aad qoraysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa linkiga hoose aad ku dhufanaysaa kadibna website markaa gashid waxaa arkaysaa start typing meel ay ku qoran tahay marka ku dhufanaysaa start typing ayaad ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufatid waxaad bilaabaysaa ama aad tijaabinaysaa qoraalkaaga sidaan هكذا marka dhameystid wuxuu kuu sheegi doonaa scorekaaga marka haddii aad fiirsid typing speedkayga wuxuu ahaa 31 wpm accuracy-gayna wuxuu ahaa 98.2 marka waxaad ujeedaa inay tahay arrintan arrin wanaagsan adoo beginner ah sheegatay kadibna maxaa laasi shahaadadan hoos waxay kugu soo qoreen hadaa fiirsid shahaado marka waxaa leenahay maxaa laasi waa arknay awoodeen Soomaan website-ka soo laabanayna hadaad weli daawanaysid fadlan muuqaalkan like star channel subscribe star okay qayb xigta ayaan u gudbeynaa marka oo ah sida formka loo buuxinayo okay aan bilaabano marka waxaan ku dhufanaysaa apply now ku dhufo apply now marka ku dhufatid waxaa soo dhaadhicaysaa qaybta hoose waxay ku leeyihiin step 1 waxaa ku ah in aad dooratid maxaa la aasay application formka aad dooratid application form door wax kale maahan waxaa jira laba application ah jiro oo markaas mid online ah ku buuxinaysid iyo mid aad offline ku buuxinaysid step 2 laga rabo waxaa waaye in aad complete garaysid guideline-ka macnaha okay haddii waxaa laga yaabaa formkii si khaldan aad u buuxisid waxay ku leeyihiin waxaa laga yaabaa codsigaaga in isla markii ay diidaan okay step 3 waxay ku leeyihiin submit or send it to us formkii submit garayso markaad submit garayso kadib after submission waxaad sugaysaa shaqo isla markii ma bilaawaysid ayagaa message kuu soo qoraya message-kooda ayaad sugi doontaa okay application-kaaga hadduu ahaa markaasi si aad u ogaatid application-kaaga inuu waa successful ama mid failure uu noqday lagaa diiday okay step 4 demo project yaa jiro oo tusaale jiro oo online tutorial ayay ku tusaayo markaad aragtid kadib ayaad shaqadii bilaabaysaa step 5 waxaa waaye review application waxay ku leeyihiin kadib markaan aqbalno application-kaaga waxaad available laga dhigi doonaa profile-kaaga department-iga ee khusayso shaqadaasi okay shaqooyinkaan soo aragnay bilow waxaa jira dhowr shaqooyin marka qaybta aad dalbatay kaliya ayaad department-gaas ayaad arkaysaa okay waxayna qaadanaysaa markaasi 2 maalin ayay qaadanaysaa in xogtaada la xaqiijiyo sheekadaysan nagu dheeraanin marka waxaan bilaabaynaa shaqadii ayaan bilaabaynaa marka
waxaan ku dhufanaynaa qaybta one aan soo laabanay kadib waxaan ku dhufanaynaa select application form aad ku dhufanaysaa application form select garayso okay ku dhufo kadib markaa ku dhufatid qaybta hoose u soco marka saan sheegna application laba nooc waaye mid waxaa waaye offline oo soo degsanaysa pdf waaye oo buuxinay kadib waa gelinay qaybna waa online adoo inta jooga ayaad buuxinaysaa foomka marka anaga waxaan rabnaa qaybta online ka rabnaa marka online ayaad ku dhufanaysaa application form online application form ka ku dhufatid hoos u soo soco fill your details meesha ay ku qoran tahay ma fill in your details to apply and work with us waad ku dhufanaysaa kadibna hoos soo soco marka waxaa sameynaysaa privacy policy-koodii waxaad leedahay accept gareeyay kadibna hoos soo bax personal information laga rabaa tusaale ahaan magacaaga personal information first name laga rabaa tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa magacii waa cali last name kaaga magaca aabahaaga iyo kii abowahaaga waxaa leedahay cabdi cali ayaa ligi dhahaa marka xogtaan gelis kadib inta waxaa gelinaysaa emailkaaga okay emailkaaga gelinaysaa emailkaaga markaa gelis kadib tusaale ahaan emailkaaga waxaa la dhahaa cali cabdi cali kale kadibna 1122@gmail.com kadibna waxaad gelinaysaa contact numberkaaga ayaad gelinaysaa qaybtaada okay Soomaali waaye marka waxaad ka bilaabaysaa numberkaaga 252 ka bilaab kadibna lix hal numberkaaga gelinaysaa shan waxa wuxuu noqdo ayaad numberkaaga gelinaysaa meeshaas kadibna wadankaaga halkan ka dooranaysaa marka ha ka cabsan all of the country wadamada adduunka oo dhan way ku jiraan meeshan okay marka Soomaaliya waa kana ku dhufo markaad doortid zip code-ka wadankeena wuxuu noqonayaa 252 ayaad gelinaysaa meeshaas okay zip code ya faaraya markaas aan ku wareerin marka professional information ka waxa waaye job title-ka maxay ahayd typing ayaad ka leedahay okay what time is best for you marka inta waxaad dooranaysaa waqtiga kugu habboon ayaad dooranaysaa okay ma waxa waaye 6 am ilaa iyo 9 am okay ma 9 am ilaa iyo 5 am marka all day marka waxa inta jeceshahay ayaad dooranaysaa tusaale all day aad ku dhufatid waa gelin kartaa marka waxa waaye your best way to receive earnings marka inta waxay sheegaysaa beesha marka lacag samaysid tusaale lacagta meeshii kugu soo dhacay marka akoonka ugu wanaagsan waxa waaye Binance waa samaysan kartaa sidoo kale direct pay jiro ama wire transfer marka PayPal هذا waxa ugu fudud waxa way PayPal iyo Binance marka Binance wali ka sii fiican PayPal marka laakiin PayPal ayaan doorbiday yani okay kadib qaybtan hoose ma kadib in waxa lagu leeyahay current professional status kaaga maxaa shaqada hadda ay haysid maxaa markaas full time employer ma tahay retire ma tahay student ma tahay housewife ma tahay marka inta ka dooranaysa okay su'aalaha haddaan doorto freelancer ahay haddaan ku dhufto kadibna waxaan ku raacay in aanay xogta kor ku soo sheegay inay tahay xog saxan ah sidoo kale aan 16 sano aan ka weynahay sidoo kale in aan akhriyay aan fahmay xogtii meesha ku qorneed kadibna waxaa leedahay yes I have read and accept kadibna waxaa leedahay انت waxay ku leeyihiin hubso in arab computer ata bini aadan ata inta tartiib dadka siinaysa iska sug waa ka marka waxay leeyihiin amna robot kadibna button-kan ayaad ku dhufanaysaa submit-ka ah inta waxay ka rabaa markaas signature-kaaga marka waxaad leedahay signature-kaaga tusaale magacaaga cali waa signature-kaaga okay kadibna waxaad ku dhufanaysaa button-kan submit ah markaas marka waxay ku leeyihiin saa u jeedidba
processing ayagaa marka process gareynayo shaqadani sidoo kale wixii xog arrintan ku saabsan kula soo wadaagaya marka saa u heshid xogtan la mid ah oo ku saabsan sida online-ka loogu shaqeysto ama lacag looga sameeyo marka channel subscribe saar sidoo kale asxaabtaadana la wadaag muuqaalkan wixii su'aal ah qaybta commentiga waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan sidaa ay nabadgeliyo